indhasarcaadka albaabka. xaqiiqdii indhasarcaadkan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah indhasarcaadyada ugu adag oo ay fasiri waayeen in badan oo dadka ah. Siduu u dhacay indhasarcaadkan ayaa ah dadkan waxaa laga duubay kaamirada qarsan iyadoo albaabka la soo dhigayo dhexbartanka waddada. Mid ka mid ah howlwadeennada oo duubaya kaamirada qarsan ayaa soo baxaya asigoo albaabka gelayo, kadibna waxaa la weynaa gebigiis sida inuu galay guri oo kale. dadkan ayaa dhacdadan waxay ku abuurtay argagax iyo layaab badan, ilaa gabadhan ayba goobta ka carartay cabsi darteed. ayagoona dadka qaarkood ay albaabka imaadeen, waxaana u muuqdo inuu albaabku yahay albaab caadi ah. haddaba waa maxay sirta ku duugan indhasarcaadkan? xaguuna ku qarsoomay ninkan? sirta ku duugan way fududahay, balse intaana xeelada bilaabin like saar muuqaalka si aan u ogaano dadka danaynayo muuqaalada aanu soo gudbinno. markii uu ninkan albaabka furay, wuxuu isku aadiyay geedaha meesha ku yaallo. sababta uu albaabku u soo laabay ayaa waxay tahay dadkan uma muuqanayso meesha uu isku qarinayo, asigoona meesha ka cararayo. kadibna waxaa soo laamayo albaabka ayadoo albaabka remote laga hagayo, waxaana dadku u muuqanayso ninkii oo qarsoomay. indhasarcaadkan ayaana sidaa ah.